World's largest retailer, Amazon. Amazon. The New York Times reporting that Amazon will lay off 10,000 workers. Soomaali fara badan oo ka shaqeeya shirkadda weyn ee Amazon. 1,000 employees. They're not the only big tech name talking about. Amazon ayaa shaqo joojin ku sameynaysa 9,000 oo shaqaalaheeda ah maalmahan soo socdo. Tani waxay daba socotaa shaqo joojinta ee soo bilaabeen sanadkii tagay November oo ay shaqada kaga ceeriyeen 18,000 oo shaqaalo. Soomaali badan oo ka shaqeysa shirkaddan ayaa saameyn ku yeelanaysa shaqo joojintan. Shirkadda Amazon oo dhowr xarumood ku leh gobolka Minnesota ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay xirayso xarun ay ka shaqeeyaan shaqaale ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 680 qof. Shaqaalaha ugu badan Soomaali ayaa ka gadooday xiritaanka xarunta ay ka shaqeeyaan. Amazon shirkad maamusho dhammaan agabyada suuqa yaalo teknolojiyadda dharka bagaashka iyo wax walba oo aan isticmaalno waxaana dhihi karaa si dadban ay dunida u maamulaan. Bezos basically wants to own the whole economy, right? You think he will? I kind of think he will. I kind of think that in like 10 years Jeff Bezos owns every single thing there is. Amazon's this trillion-dollar tech company, closing 30% of our stores and malls and paying zero in taxes. How much of the internet do you run? It's a good question. It's a lot though. shirkad dhaqaale ahaan ku fadhido trillion US dollar sanadkii faa'iidada ay sameeyaan wuxuu kor u dhaafayaa 234 bilyan oo dollar waxa ay ka badan yihiin GDP-ga wadamadan soo socda Soomaaliya, Uganda, Tanzania, Congo iyo Ethiopia. Wadamadan inta ay dhaqaale ahaan sanadka u sameeyaan waxa ka badan inta ay Amazon sanadka sameeyso. Haddaba waa maxay sababta ay shaqaalaha iskaga kala dhimayaan shirkadda intaan xajmigeedu la egyahay intaas oo dhaqaale ahaan ku fadhido? Muuqaalkan ayaan kugu sharxayaa adigoo wax badan ka fahmi doono casriga kala guurka shaqaalanimada. Amazon this week announcing a very big move into the pharmacy business. It sent shockwaves through the industry. $1 billion acquisition of PillPack. Amazon making a big deal in the self-driving car space. The price that Amazon paid was north of $1 billion. Sold it to Amazon for over $1 billion. Amazon is buying Whole Foods for nearly $14 billion. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada inta aanan u guda galin sababta ay Amazon shaqaalaha iskaga kala dhimayso haddaba aan wax ka fahanno meesha ay shirkaddan ka soo bilaabatay iyo sida ay ku noqotay shirkadda ugu weyn ee internet wax ku iibiso. Agosto 1994 Jeff Bezos oo 30 jir ah ayaa wuxuu furtay dukaan bugaagta lagu iibiyo wuxuuna u bixiyay magaca Relentless laakiin saaxiibkiis ayaa u sheegay in magacan uu adag yahay wuxuuna ku bedelay magaca aan maanta wada naqaano ee Amazon. Bugaagtaasna wuxuu ku iibin jiray qaab online ahaan ah Amazon.com ay dadka soo galayaan meeshas ayna ka dalban jireen bugaagta. Furashadaas uu dukaanka bugaagta furtay waxay ahayd waddo uu kaga xoroobayay shaqaalanimadii uu ku soo jiray asagoo ka soo shaqayn jiray shaqooyin aad u adag si nolol maalmeedkiisa u soo dhacsado. Shaqadiisa ugu horeysay wuxuu soo bilaabay asagoo 16 jir ah wuxuuna jikada u galay oo u soo shaqeeyay maqaayadda caanka ah ee McDonald's. Amazon waxay ka soo bilaabatay dukaankaas yarka ah ee lagu iibiyo bugaagta. Jeff Bezos uu sii hormariyay 1998 wuxuu gatay laba shirkadood oo sameeya bugaagta oo lagu kala magacaabo Book Pages iyo Tella Books. isla sanadkii xigana wuxuu gatay IMDb waa website-kii ugu horeeyay oo laga daawado filimada oo qaab online ahaan loo daawado waxaana laga lahaa wadanka England waxaana sameeyay ama aasaasay ninkan. Qorshaha iyo hadafka Amazon waxay damacsanaayeen in ay saameyn ku yeeshaan mustaqbalka internetka. Shirkaddan horumarin zaa'id ah ayay ku sameeyeen iyagoo heshiis la galay kambaniyada sameeya productyada kala duwan. Alaabaha ayay ka soo gadanayaan qaab online ah ayayna ku sii iibinayaan. Dadkana waxay ku qanciyeen qof walba asagoo gurigiisa joogo in alaabta albaabka loo soo dhigo asagoo online ku dalbanay alaabtaas. Waagaasna dunida waxa ku cusbeed in qaabkaas internetka loo isticmaalo oo waxay ahayd wax ay dadka xiiseynayeen in internetka wax laga dalbado. Qof walbana wuxuu iska dhaadhacsiiyay inta aad magaalada aadi lahayd waqti badan ka bixi lahaa alaabta aad u baahan tahay Amazon ka dalbo si adigoo gurigaaga joogo alaabta aad dalbatay lagugu keeno adigoo waqti badan aanan ka lumin. Meeshaasna Amazon waxay ka heshay fursad aad u weyn shaqaale aad u badan oo delivery ah ayay shaqaaleysiiyeen. Company-ga Amazon oo sii fiday sanado kadib shirkaddan waxay noqotay in wax walba oo suuqa yaalo laga helo. Productyada available-ka ah oo ay dadka toos u soo dalban karaan waxay noqotay 350 milyan oo product. Isla markiina waxay bilaabeen inay sameystaan alaab ay ayaga gooni u leeyihiin ama magacooda uu ku qoran yahay. Sidoo kale waxay lugta la soo galeen oo ay saameyn ku yeesheen wax walba oo la xiriira isticmaalka internetka. Ayagoo tartan adag suuqa internetka kula galay kambaniyada waaweynaa sida Facebook, Twitch, Netflix iyo saddexda kambaniyood ee Elon Musk, Twitter, SpaceX iyo Tesla. Waxaana bilaabatay in kambaniyada waaweynaa
cabsi iyo shoog ay ka qaadaan sida ay Amazon ku socoto iyo xawaaraha ay internetka ku qabsanayso waxayna bilaabeen inay isticmaalaan oraah ah Amazon's competition is almost everyone in tartanka Amazon qof walba oo saameyn ku yeelanayo filimada iyo showyada waxay bilaabeen qaybta filimada waxayna sameysteen shirkadda Prime Video shirkaddan oo sameysa filimada showyada serieska waxayna suuqa ka saareen shirkadda weyneed ee Netflix stuudiyaha Prime-na wuxuu noqday stuudiyo ugu fiicnaa abid kaamirooyinka ay isticmaalayaan qaabka ay wax u duubayaan waxayna ku guuleysteen inay qaadaan sawirkii dunida ugu quruxda badnaa Amazon is the first streaming service nominated for Best Picture. And the Golden Globe goes to Transparent, Amazon Instant Video. I want to thank Amazon, Jeff Bezos. To Amazon, my new best friend. Jeff Bezos is here. Oh! Jeff Bezos. Wow, great actor. Jeff Bezos is so rich. He got divorced and he's Elon Musk meesha kaliya uu culayska ka dareemayo waa Amazon iyo Jeff Bezos shirkadihiisana waxay caqabad aad u adag kala kulmayaan Amazon gaariyaasha korontada ku shaqeeya ee kaligood iswada ee Tesla qorshaha Elon Musk wuxuu ahaa in mustaqbalka gaariyaashan dunida laga isticmaalo muuqaal laga duubay nin gaariga Tesla wada oo iska jiifo ayaa baraha bulshada viral ka noqday muuqaalkaas oo sababay in Elon Musk su'aalo la weydiiyo waxayna sheegeen inaan la isku haleyn karin seefatiga gaariyaasha Tesla Elon Musk wuxuu sheegay in software-ka Tesla ay ku shaqeyso wax laga bedelay oo qofka hadduu iska seexdo ama steering-ka gaariga uu taaban waayo alarm u shidayo gaariga speedkiisana isdhimayo haddaba meeshaas ayay fursad ka heshay Amazon isla markaana waxay soo saareen qalab aamusinaya alarmigan hadduu isa shido steering ayaa lagu xirayaa qofkana uu iska seexanaya meeshaasna waxay caqabad ku noqotay Tesla Amazon intaasna ogamay haran waxay hadda mashruuceeda wadaan oo ay soo saarayaan gaariyaal kaligood iswado oo waliba ka casrisan kuwa Tesla gaariyaashan waxaa lagu magacaabaa Zoox sidoo kalena waxay lugta la soo galeen artificial intelligence-ga ama AI-ga waxayna sameynayaan robotyo ay ugu talagaleen in xaafadaha ay ka shaqeeyaan sidoo kale waxay soo saareen qalab guryaha la dhigto oo ka difaacaya haddii guriga uu tuug soo jabsado Amazon meel walba ayay lugta la gashay waxayna noqdeen suuq aad wax walba ka helayso waxayna hadda aad u horumarinayaan isticmaalka artificial intelligence-ga waliba ayagoo sheegay inay sameeyeen gabdho aad u qurqurxan oo artificial intelligence ah oo aad kaga shakinayso inay yihiin bini aadam sidoo kale Amazon waxay ka qayb qaateen tartanka hawada sare lagu tartamayo oo la aadayo oo dayaxa la soo booqanayo sanadkii 2021 ayay ahayd marka ay tijaabinayeen oo amba bixidda hawada sare Jeff Bezos waxa lagu eedeeyaa inuu milkiyay ama leeyahay product ama wax walba oo maanta dunida laga isticmaalo haddaba waa maxay sababta ay shaqaalaha iskaga kala dhimayaan visionka ama hiigsiga Amazon waxay xooga saarayaan shaqaalaha ku shaqeeya tiknoolajiyadda ama tech-ga waxayna kala yareynayaan shaqaalaha xamaaliga ayagoo ku bedelayo robotyada casriga iyo tiknoolajiyadda ayaa sababtay in shaqaalaha xamaaliga laga maarmo oo bedelkooda la geliyo robotyo mar walba oo tiknoolajiyadda ay sii horumarto waxaa meesha ka baxayo shaqooyin badan oo ay bini aadamka hayeen taasaana keentay in Amazon shaqaale badan ay ka ceeriso shaqooyinkooda adeegsiga AI-ga ama artificial intelligence-gana waxay shaqo la'aan dhigeen dad badan oo shaqooyinkooda nolol maalmeedkooda ka soo dhacsan jiray Amazon keliyana ma ahan shaqo joojintan ee waa dhammaan shirkadaha tech-ga Elon Musk markuu gatay Twitter wuxuu shaqada ka joojiyay shaqaale aad u badan isagoo sheegay inaan loo baahnayn sidoo kale Meta Virgin Group haddaba mar walba oo ay dunida sii horumarto waxaa meeshaas ku baaba'ayo shaqooyinka caadiga ahaa oo ay dadka hayeen muuqaalkan intaas uu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay